asxaabta waa idin salaamay soo dhawaada ku soo dhawaada janaalka Fatax Abuukar maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii safarkii madaxweynaha uu ku tagay magaalada Kismaayo xarunta Jubbaland waxaan maqlayaa runtii in madaxweynaha arintii uu u tagay Kismaayo ahayd in muxuu ahaay asiga iyo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland runtii isu soo dhawaadaan oo khilaafka siyaasadeed ee jira la xaliyo in arintaa lagu soo fashilmay oo ay fashil ku soo dhamaatay madaxweynuhuna uu ku soo noqday magaalada Muqdisho horta taas war lagu farxo ama dadka Soomaaliyeed dheewada u roon maahan wax laga xumaado madaxweynahana runtii waxaad moodaa xogaa in uu fududaaday oo fudeed ka muuqdo iyo runtii prime ministerka madaxweynaha ra'iisul wasaarihiisa runtii siyaasad fadhiso iyo mowqif cad iyo hadaf cad iyo wax ay shinsanayaan ama hadaf ama ujeedo ay leeyihiin runtii inaysan muuqan ayaa runtii meeshaas ka muuqanaysa markaa fiiriso qaabka iyo hab dhaqanka siyaasadeed dhankaas fila Soomaaliya anoo rabin inaan ku sii talax tago laakiin haddana madaxweynaha waa tagay Kismaayo tagay wuxuu la kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe dabcan madaxweynaha hore waxa uu soo saaray warqada u soo saaray oo Axmed in lagu soo xiro mar madaxweynaha sii horeysay hadda ka hor wuxuu dhahay loo jooji macnaha kuma rabay macnaha ay keentaa marka ama ay sababtaa waana sax qofka tira kuma rabo asna ku dhaha taas xaqiiqo waa shaki kuma jiro qofka tira kuma rabo ka sugan inuu ku yiraahdo waa ku rabaa marka madaxweynaha marka uu tagay Kismaayo oo la kulmay dhigiisii muxuu ahaay maxaa yeelay aniga oo aan qiraho laba madaxweyne waay marka markii uu tagay Kismaayo oo Axmed la fadhiistay wixii tabashaa iyo wixii Madoobe iyo wixii siyaasadda in laga wada hadlo tartiib loo xaliyay ay ahayd runtii laakiin waxaa muddo madaxweynaha inuu ku dhagay Axmed oo ka tanaasul doorashada markaas aan wada hadalno taasna runtii wax sax hadda maahan maxaa yeelay Axmedna wixii oo inta ka soo maray hadda si fudud inuu tanaasulayo maxaa yeelay Axmed waxa maamulka kaliya maanta muxuu ahaay marka maamuladan kale hadda aan doorashada gelin loo fiiriyo waa maamulka hadda sharciyad haysto runtii legitimacy haysto oo maaragtay ku joogo meesha doorasho qabtay marka madaxweynaha waxa ay intuusan Kismaayo tagin inuu dirsado wafdi gogol xaar u ah arintaas maaragtay u geed fadhiisto xaliyo khilaafkii la dhameeyay oo yimaado Kismaayo Axmedna la fadhiisto labadooda qoslayeen ay halkaas ay ka soo muuqdaan wax Soomaalidan u ahna runtii ay halkaas maaragtay ay ka ambaqaadaan oo dadka Soomaaliyeed dhawooda war fiican ay maaragtay soo gaarsiiyaan ayay ahayd runtii mana dhicin taas xaqiiqatan madaxweynihii ordaa tagay asaa haddana soo orday marka waxay ku tusay taas runtii in cidda muxuu ahaay la rabay inay tanaasusho oo ahay madaxweynaha maadaama asigii oo yahay maaragtay muxuu ahaay astaantii qaranka u taagan yahay madaxweynihii dalkan iyo dadkan isku hayay oo yahay maamuladiisi maamulka midna runtii inuu la fadhiisto oo qanci waayo waxay ku tahay falxumo iyo maaragtay muxuu ahaay dhamarjab iyo fashil siyaasadeed dadka madaxweynaha ku ah maaragtay siyaasadiisa dhalisan runtii ayay shidaal ku sii shubay runtii oo ay sii dhiirigelinay oo maaragtay muxuu ahaay madaxweynaha ayay fashilkiisa runtii sii kor u sii qaaday laakiin waxa iga muuqato fila Soomaaliya siyaasad fadhiso iyo runtii diblomaasiyad iyo aqli mangal ah inaysan ku socon waxaan dhilahay marka aan miirka soo idin soo noqdo oo si degan oo miisaan leh oo maaragtay miir leh waxa looga fakaro siyaasaddan waxay u baahan tahay deganaan iyo xasilooni iyo wada hadal is qancin iyo isu tanaasul iyo isu dhimrin ayay u baahan tahay marka taas wax dhaamo ma jiro marka taasaan dhilahay lagu xaliyo maxaa yeelay runtii waxa kugu filan tusaale bal wax yar ila dhageysta madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh markii uu dhahaayay macnaha kuma rabo way keentaa madaxweynuhu marka hadda adiga tiraahday kuma rabo Axmedow adoo madaxweynihii Jubbaland adna waxay kugu keenay adoo madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh kuma rabo bal marka wax yar ila dhageysta codkan asxaabay kuma rabo leedahay wax kale waraa adiga kuma rabo haddaan ku dhaw waraa adigana kuma rabaad leedahay waa aragtay Soomaa okay waa madaxweynihii Xasan Sheekh oo saas dhahay bal dhanka kale ila dhageysta prime ministerka ra'iisul wasaaraha hadda joogo Xamse Cabdi Barre oo asna dhahayo doorashada Jubbaland maamulka Jubbaland kama hadli karo ma farageli karo federal ma farageli karto kaliya guddiga doorashada ee Jubbaland ayaa madax banaan bal ayadana ila dhageysta doorashada Jubbaland waxa xadiday oo meesha lagu qabanayo iyo xilliga loo qabanayo iyo sida loo qabanayo waxa xadidi kara oo kaliya guddiga xuduudaha doorashada Jubbaland waa doorashada qabsatay maxaa lagu sameeyay maxaa loo farageliyay soo sharci darro iyo nidaam darro Soomaa war meerka idin soo noqdo oo maaragtay muxuu ahay dawladnimada saas maahane
dowladnimo waxay u baahan tahay deganaan xasilooni iyo isqancin iyo maaragtay habraac ay leedahay habraacaas hala raaco muxuu ahay taasna waxa loo xaliyo intaasaan kusoo gowgeynaa aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu